halkan waa safaaradda Soomaaliya ku leedahay wadanka Kuwait. Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan halkan ayaa booqasho ku yimid waxa uu la kulmay howlwadeennada safaaradda Soomaaliya ee magaalada Kuwait. Safiirka Soomaaliya u fadhiya ee wadanka Kuwait ayaa ra'iisul wasaaraha ku soo dhaweeyay safaaradda wuxuuna warbixin ka siiyay sida u socdaan howlaha safaaradda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in wax lagala qabto si loo hormariyo adeegyada ay safaaraddu u hayso shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyada ku nool halkan. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu mahad celiyay safiirka iyo howlwadeennada sida wanaagsan ay ugu adeegaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool wadankan isla markaana ay u matalaan qaranka Soomaaliyeed. safiirka Soomaaliya u fadhiya wadankani Kuwait mudane Cabdullaahi Maxamed Odawa oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay kormeerka ra'iisul wasaaraha uu ku yimid maanta dhismaha safaaradda Soomaaliya ee wadankani Kuwait. waxa uu sidoo kale ka warbixiyay safarkii ra'iisul wasaaraha ee soo gabagabay uu ku yimid wadankani Kuwait ee daarnaa in uu shacabka iyo dawladda Kuwait ula wadaago tacsida shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqasho rasmi ah ku yimid wadanka Kuwait bishii markay ahayd 4tii bishii 10aad 2020 safarkaas oo ay ku wehelinayeen wasiirka arrimaha dibadda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo la taliyaal sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha. safarkani waxa uu xidhiidh la lahaa oo uu khuseeyay in tacsi ay dawladda federaalka iyadoo ka wakiila ummadda Soomaaliyeed ay u gudbiso dawladda Kuwait iyo shacabka Kuwait geeridii naxdinta lahayd ee ku timi amiirka hore Kuwait Ilaahay ha u naxariisto Sheekh Sabax Al Ahmed Jaabir Sabax oo horaantii bishan ku geeriyooday ama dhamaadkii bishii hore ku geeriyooday wadanka Mareykanka laguna aasay magaalada Kuwait. wafdigu markii ay soo degeen maalintii ku xigtayba waxay markii hore booqdeen qabriga lagu aasay marxuumka amiirkii hore halkaas soo duco iyo quraan ay iskugu dareen kadibna waxay u soo gudbeen xarunta qasriga ambaba diiwaan amiiriga ee uu fadhiyay tacsida ay ku qaadanayay amiirka cusub iyo dhammaan reer Aala Sabax oo ah caa'iladii uu ka baxay amiirku halkaas oo ay tacsi ugu gudbiyeen amiirka cusub iyo dhammaan qaraabadii iyo ehelkii iyo madaxdii wadanka Kuwait. sidaas ba ayay hawshaasi ku soo dhamaatay aadna waa loogu farxay safarka dadka jaaliyada ah ee Kuwait waxay u ahayd farxad inay arkaan madaxdoodii oo iyaga matalaysa xanuunka la qaybsaday walaalahooda reer Kuwait oo tacsidii u soo gudbiyay taasoo tilmaamaysa xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya Kuwait iyo Soomaaliya iyo labada mujtamac ee walaalaha ah ay inagana mutaysan yihiin inaynu arintaas u soo galno. ra'iisul wasaaruhu isagoo runtii aad u mashquula ku jira soo dhiskii dawladdiisa magacaabidiisa muddo yar ka sokayso ayuu ugu baxay safarkiisa ugu horeeyay dalka Kuwait si uu u dareenkiisa u muujiyo isagoo matalaya ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadba oo uu la qaybsado murugadaasi iyo xanuunkaasi walaalaheena dalka Kuwait. booqashadii shalay markay dhamaatay tacsidii iyo quraan akhriskii maanta wuxuu ra'iisul wasaaruhu soo booqday safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Kuwait oo uu la kulmay xafiisyada kala duwan uu u kuur galay shaqada kala duwan ee safaaradda u hayso mujtamaca la kulmay shaqaalaha diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha caadiga ah ee safaaradda halkaas oo uu waqti wanaagsan ku qaatay. safaaradda Soomaaliya ee wadanka Kuwait ayaa la furay sanadkii 1973 markaas oo ahayd markii xoogaystay xiriirka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kuwait. ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.